بسم الله صاحب يا العاو وحوي وحينو كشقينا حسابتا بينو كشقينا حساب سهلا maaha marka ila socda rectangle Laydi baa af Soomaaliga lagu oran jiray waxa halkaas ku qoran yahay Laydi Laydi ku xayndaaban laba dhidib labada dhidib ee sawirka ka muuqda marka sawirka waa kan Cartesian ayaa lagu sawiray x iyo y laba line oo midna uu yahay y is equal to 4x saleymanka loo sameeyo waad garanaysaa waan u malaynayaa iyo y is equal to minus 5x plus 6 halka Laydi baa ku dhex jira marka Laydigaas ma afargeeskaas sideedaba Laydi waxa la yiraahdaa maxay afargees xayndaab afargeesa oo afarta dhinac lababa dhinac isku leeyihiin kala weyn yihiin laba dhaadheer oo isla eg laakiin iyo laba ka gaaban labadaas oo isla eg saadim kalka ku aragto marka hore waxa sawiraysaa dhidibadaad sawiraysaa dhidibka waxa taqaanaa tiiradiisa taqaanaa oo si lagu helo tirada halkaas egasta horteeda adeegaysa waxa yaal 4 baa yaala tiradiisu waa 4 1 kor 4 yaad kor u socon 1 baad dhinaca midigta u socon dhibic halka waa 4 1 magaratay kalena adigu waad garanaysaa kaa ku noqon mayno kaa waxay nooga jiraa ma jira hadda ujeedadeenu waxa weeyaan halkaa waxaa ka soo baxay Laydiga si fiican baan u weyneeyay waa kan kaas la inaga rabaa xisaabtan horta waa calculus bitagaysa sababta yarayso iyo weyneyso wax la yiraahdo ayaa la raadiyaa maximum iyo minimum maximum area ayaa raadinaynaa maximum area BEDKA ugu weyn ee labada xariiqood ka soo dhex bixi kara bedadku way kala duwanaanayaan saas u noqonayaa mar intaas uu ku ekaanayaa mar intaas ku ekaanaya labada dhinac labada wayna laba dhinac laba geeska wayna ka taabtaan labada xariiqood salkuna wuxuu ku fadhiyaa egaska haddaba waan halkan ka koodhay halkaan ku soo noqdo aan yara weynay wakan yar weynay sawirka haddaba xisaabtani waa calculus kelmadda soo English Soomaaliga inaga soo dhex gashay calculus oo English waa Soomaaliga lagu yiraahdo ma naqaano xisaabta calculus ka weeyaan waxa la yiraahdo sida maximum iyo minimum maximum area wala raadinayo haddaba afartii gaftin lababa dhinac bay yihiin labadaasi afartu horta egasna way yeelan karaan wayna way yeelan karaan soo moogta sababtaa bar kasta waxay ka kooban tahay lamaane horsa egas iyo y kolka u baan ka soo qaadanaynaa halkaa gaftinka ugu horeeya gaftigaasina u buu noqonayaa laakiin maadaama mudada ka dhaco 4u buu noqonayaa y is equal to 4u gaas noqonaya waayo dhidibku ku dhici karaa egaskii baa markaa u lagu bedelay ma garanaysa u waxaan xariiqanta egas ayaan dhigaynaa gaftinka ugu horeeya ee b marka 4x waxay noqonaysaa 4u haddaanu helnay 4x tiaan ka wareejino 4u helnay soo saar u-da adigoo egasta adigoo u bedelaya ilaan y-diiba u baan u bedelnay moogta 4u baan egaskina waa in u loo bedelaa see lagu soo saari doonaa
4u oo ay dii ahayd waa dhidibkii labaad baan qaadanaynaa isla egtay dhidibkii labaad minus 5x plus 6 halkaa warwareeji kala wareeji u-da waxaa lagaa rabaa maxay inaad egastaas u taagto u egaskiiseen ugu taagnay u waa tana 6 minus 4u divided by 5 6 laga jaray 4u loo qaybiyay 5 xisaabta adaa ku noqon doona waa geeska kale ee x kolka egastaas ilaan dhidibkii maadaama sidaa yahay mid waa u baanu helnay midna waa kan aynu helnay oo x baynu la baxnay diidaas x baynu noqonaysaa markaa salkiistee lagu helayaa salkii waa diidaas oo laga gooyay bdaas bdu u bay ahayd diiduna waa intaan aan helnay egasta egasta ku yaallay sababta egasta ku yaalla egasta lineka egasta ku yaalla u intaan aynu helnay soo ma aragti halkaa waa tan halkan aynu ku niri markaa dhinaca salka laydigu waa intan halkaas intaas aynu ku rabnaa dhexda halkaas oo egasta inoo ahayd qiimaheegii oon u taagnay iyo u-dan oo la kala jaray si fiican u eego intaas iyo laga jaray u daba bedka laydigu waa maxay bedka laydigu waa allaha oo allah ilaahay kuma daraadee bedka maxaa lagu helaa laydiga l iyo w hadday kala yihiin a oo bedkii wuxuu noqonayaa labada dhinac oo la isku dhufto soo ma waa sidaa xisaabta tuugna maxada bay odhan jireen tuugna maxado oo fiirsa haddaba aynu soo gelina haddaba inaku w iyo l iyo w meeshay nooma yaalaan u bay noo taale waa 4u oo dhinac ah 4u waa halkaa halkaas waa 4u moogta waa dhinacaas 4u deegasta ahayd yudu iyo dhinaca kale oo ah intii aan ka soo saarnay egasta intii aan ka soo saarnay dhexda salkii laydiga hor laydiga waa kan salkiisi waa intan halkan labadan b iyo d buu dhexeeya didoo xisaab ahayd oo laga jaray u-da diidu maxay ahayd egastay ahayd u-da laga jaray marka waa 4 intaas isku xisaabi markaa isku soo wada xoori intaasaad heli doontaa oo haddana intaasaad heli doontaa waan sii yaryareeyay ma garanaysa haddaba halkaasay ka bilaabaysaa calculist si maximum iyo minimum maximum loo helo waxaa la yidhaahdo waa inaad derivative waxa weeyaan waad xigid ama derivative tan xigaynaa xisaabtan baan xigaynaa xisaabta waa la drive garaynaya xigga waa taqaan xig walaa halkaasay ka keeneen soomaalidu xigga marka la xigayo oo degooyinta laga xigayo waad aragtay yani waa la yaraynayaa waxaa laga qaadayaa qoloftiba degooyinta laga qaaday soo ma saasaa loogu bixiyay xigid malaha kolkaa derivative ayaa englishka noo dhan derivative a waa intan oo see ku noqota ad waa tan derivative-keeda aad samayso kani intan unbaa soo hari doonta waayo halka one baa u yaala onkii baad halkan ku dhufan one baad ka jari 0 bay noqotay youtube power of 0 oo 1 intaasaa kuu soo hadhay halkan iyadan derivative ku waa la kala qaadqaadaya mogta derivative ilan u baa labadaba la socdee u square baa tani la socda labadan baad halkan ku dhufan 27 loo qaybiyay 5 minus 1 halkaana minus 1 baad dhig xisaabtii aan mar hore ka shaqayn jirnay la xasuuso derivative-ki waa caynkaas derivative-kaasi wuxuu sheegayaa markaa 0 baa laga dhigayaa si aad u soo saarto u-da oo sidee looga dhigayaa 0 waxaa looga dhigayaa 0 baad usoo qaadanaysaa
markaad maximumkii wax raadinayso derivative-ka koowaad 0 baad kasoo qaadanaysaa si aad u-ga u hesho u-dii baan helay waa intan u-dii waa dhinaca ka mid ah 4u bay noqonaysaa dhinacii ka mid aha laakiin u baan hadda helay u haddaan helayna area waan areadii waan heli karaynaa areadu intay ahayd intaasay ahayd areadii ku dhufo markaa areadii intay ahayd intaasay ahayd iyadana waata marka waan soo saarnay areadii haddaba areada intaynaan soo saarin areadani ma tahay maximum see lagu hubiyaa derivative labaad baad samaynaysaa kana derivative labaad u samaynaysaa derivative labaad waka labada halkaan dhigay ma aragtay d derivative 2 second waxa weeyaan kani 0 weeyaan maadaama tira yahay kan 1 baa yaala 1kii baad halkan kusoo dhufatay inta baa soo hadhay minus taasi baa la sheegaya haddaba taas aan af Soomaaliga hagaajiyo derivative-ka labaad wuxuu sheegaa haddii uu 0 ka yaraadana waa maximum areadaadu haddii 0 uu ka batana oo halkaas plus noqon lahaydna waa minimum kolka minimum iyo maximum soo saar baa lagu odhanayaa areada kolka maximum bay hadda inoo sheegaysaa inay tani tahay maximum derivative-kii labaad minus buu noqday taa uu ka yaryahay 0 taas halkaas kuu sheegaysaa kolbaan saa kuugu wada qaban sidaasaan kolka ugu wada qaban waan kaa yara fogeyn tay hadday suurto gasho wata hadaad arki kartid inaad arki karin baan xisaabtii oo dhan wataa markaas intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu